هنغنين sida ninkan 40 jirka wali ar jirka ah yani faa'iido ma lahan kaale sida hanoqonin kaale wax bareeytay dugsiga aad masaajidkii aad tacliimtii wax bareeyay ay ku dhahay نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم الصلاة والسلام جمعا على من عم الخلق نفعا صلوات الله وسلامه عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وحلقة كويتبونات برنامج كي تحنان وها تبي ملعس أن كسو بنيني قيسوين كود أن صورنيني أهل القرآن قصص أهل القرآن قيسوين كأهل القرآن كأي حلقة كويتبونات ما أنتو حنكال لنا qaarigaasoo markii hore arijir ahaa waliba arijirnimadiisu ku gaaray 40 sano ka bacdina kalami yar ee maama xilligaas ay rabtay in cunigeeda oo dugsi diidana ay ku dhiirigeliso ay dhahday ayaa asaga dhiirigelin ka qaaday waxay tiri قال ويلك يا بني تعال لا تكن مثل هذا الراعي في 40 أو كما يعني سيدة هنا يعني أي كجرته تراجمته أما تاريخه إن هنغنين سيدا نينكن 40 jirka wali ar jirka ah يعني فائدة ما لهن قال سيدا هنغنين قال wax bareeytay dugsiga aad masaajidkii aad tacliimtii wax bareeyay ay ku dhahay dhigtiisa ayaa ku dhacday qaarigaas wuxuu ka qaaday dhiirigelin wuxuu isir ma aniga la ii soo qaadanaya tusaale qofan waxba qiimo lahayn waxaan yudrabu mathalan ma noqdo yiri qof tusaale oo midaal loo soo qaato midaal xul loo soo qaato ma noqdo maanta buu yiri go'aan buu meesha ka gaaray 40 jir asaga ayuu bilaabay sida yani qisooyinka ay sheegayaan oo quraan akhrisi baritaankii bilow uu bilaabay laakiin muxuu noqday qaari fi casri ayuu noqday magaciisa ma garanaysaan waa imaam al-Kisaa'i mid kamid ah 10 qaari ee qiraa'at al-10 magacooda qiraa'aadka loogu daray qiraa'at al-Kisaa'i magaciisa baa loo bixiyay wuxuu leeyahay al-Kisaa'i karaamaad aad cajiib u ah khatiib al-Baghdadi wuxuu soo warinayaa mid kamid ah karaamaadkiisa wuxuu leeyahay Kisaa'i ayaa wuxuu dhahay waxaan riyo ku arkay rasuulka sallallahu alayhi wasallam rasuulka dad ku aragtidna riya si dhabbad u aragtay oo sida xadiidka ku sugnaa lianna shaytaan iskama dhigi karo yani rasuulullah sallallahu alayhi wasallam mujiisa iyo suuradiisa iskama dhigi karo qof kale iska soo dhigi kara laakiin marka wuxuu leeyahay Kisaa'i waxaan riyo ku arkay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ra'aytu fil manaam marka ayuu ii weydiiyay Kisaa'i adiga miya markaasaan ku yiri naam ya rasuulallah wa aniga markaas rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri iqra akhri Kisaa'i wuxuu ku jawaabay maada aqra ya rasuulallah maxaan akhriya ya rasuulkeen sallallahu alayhi wasallam markaas rasuulku yiri iqra was-saafati uu bilaaway Kisaa'i inuu akhriyo والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد آيات أخرى
markaasuu yidhi garabku iga taabtay rasuulka sala alla alay wasalam la ubaahiyanna bika almalaa'ikata qada ayuu yidhi waxaan kugu faani doonaa malaa'igta ayaan kugu faani doonaa birito allah qofku uu ku arkay riyada waa rasuulkeena sal ly wasalam qof kale waxaan kugu faani doonaa malaa'igta hortooda waa rasuulkeena sal ly wasalam yaa lagu faanayaa imaamulkisaa'i halkuu ka gaaray darajada alqur'aan alkariim tilaawatan qiraa'atan ifahman tadabburan ta'athuran wa ikhlaasan billah ayuu halkaas uu ku gaaray imaam kisaa'i xamza binu zayaad marka laga soo tago fii casrihi xilligaas wuxuu noqday yacni fi lkuufa wuxuu ku noqday qofka ugu sare ugu darajo sare dhanka qiraa'ada qur-aanka wuxuu usoo wareegay markii dambena basra khaliil ayuu ka bartay luqa alcarabiya aan dib u laabano haddii waxaan ku bilaabnay inuu ahaa arijir oo weliba yacni da-weyn uu ku gaaray inuu arig weli uu la sii jiro laakiin hal kalima uu ka maqlay maamadaas oo cunigeeda dhiirigelinayso ayaa asana dhiirigelin uu ka qaaday tusaale xun oo loo soo qaadana ayaa u cuntumi weysay waa tan uu dadaalay marka dadka waaweyn oo weli qur-aanka xifdinin imaamul kisaa'i taariikhdiisa dib u baara inta hadda aan sheegnay anaga kama wada gaarno xalaqadan kilib yar kooban oo u tirgalnay ee dib u baara oo qaari dhan noqday 40 jir markuu ahaana ari jir buu ahaa marka taa waxay muujinaysaa qof walba wuu awoodaa qur-aanka inuu xifdiyo dadka qur-aanka xifdinta ku adag isla mar walba qur-aanka ma xifdin karna waxa ayagana aan ku dhiirigelinayaa qisadan kooban oon kusoo gabgabaynayo insha allahu tacaala si ay ayagana dhiirigelin uga helaan sida imaamul kisaa'i maamada cunigeeda dhiirigelinaysa qiyan dhiirigelin ugu helay waxaan leeyahay qisatu addalwul aswad horay ma uma qasheen qisadii baaldiga madooba xalaqadii ramadaankii hore ayaan kusoo qaadanay xalaqaad qayb ka mid ah qisatu dalwul aswad macneed maxaa weeyaan waxayna ku saabsan tahay oday waayeel ah maalin walba qur-aanka buu akhriyaa laakiin ma xifdin karo walaa aaya wiil asaga awow ah ayaa maalin ka mid ah maalmaha challenge gareeyay ama u imaado ku yiri awowe adiga maalin walba qur-aan baa akhrisaa aniga waqti kooban aan akhriyaa dugsiga aan taga inta kale iska ciyaara hadda waxaan xifdiyay juz amma adigana hal ma xifdisneed ee maxaad ka faa'iida ayuu yiri wuu weydiiyey su'aal buu weydiiyey awowi wuxuu awooday xilliga inuu dhaho qur-aanka fadli badan buu leeyahay ajar badan baa laga helaa wiilkaygu yaa u sharxa baa uu awooday laakiin wuxuu rabay inuu tusaale aan u fahansiiyo wiilkan yarka waxa laga helo wuxuu yiri baaldigii madooba ee dhuxushan ku shiban jirnay soo qaad waa baaldi wasakh badan oo baaliyo duug ah dhaxdiisa iska dureersan tahay oo faa'iido nafci weyn aan lahayn wuxuu yiri wabiga tag amisana badda tag biyo soo qaad iikeen wiilkii sida ayuu yeeray meesha ayuu tagay biyo ayuu baaldigii kusoo shibay laakiin asoon qarka wabiga soo dhaafin ayaa biyihii ka daateen mar labaad ayuu ku laabtay uu la soo orday xoogo isla markaadna way ka daateen ilaan hore u sheegnay baaldiga waa baaldi aad iyo aad u duqoobay mar saddexaad ayuu soo qaaday weli waa sidii uu ku celceliyay intaasoo jeer weli waa sidii asoo yar niijabsan buu awowgiis u imaad wuxuu ku yiri awowe waxaad i dhiibtay baaldi aan nafci lahayn oo faa'iido lahayn awowi ayaa yiri marka dib u fiiri baaldiga faa'iido kale ayuu leeyahay mayuu yiri wax faa'iido leeyahay malaha biyihii loo tirgalay hadduu soo qaadin muxuu kala lahaan karaa yiri wiilkii awowi wuxuu weydiiyey hadiiti markaa qaadaysay baaldigan dhaxsiisay u ekeed way madooweed wasaq baa ka buuxday laakiin hadda fiiri dib u fiiri nadiif waay marka wuxuu yiri awowe aniga sida baaldiga ma aragta ayaan u duqoobay sida baaldigan biyaha aan u keedin karin oo qaban karin anna ma xifdin karo qalbigayga laakiin qur-aanka akhrinta waxay dhaqdaa oo tirtirtaa danuubteena sida baaldiga wasaqda aabiyaha ay ugu tirtireen wiilkii markaas ayuu fahmay qur-aan akhriska badiya taa waa marka adi xifdinta ay kugu adagtahay laakiin maba adkaba wax mustaxiil ma jiraan waad xifdin kartaan waan awoodaa kul celika bacdina bismillaahi dheh faidaa acsamta فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إلهي ويدسننا إنه نغرقه أهل القرآن أهل الله وخاصته أيان ويدسننا حلقة هالكاس أين وجوكتا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم
waraxmat ullaahi wabarakaatuh.